salaama daawadayaal halkani waa channelka wararka ee Somali News ku soo dhawaada timinteena maalinimo qodobada idinku soo gudbi doonana waxa ugu waaweyn shirka madaxda maamul goboleedyada iyo ra'iisul wasaare Roble iyo midowga musharaxiinta mucaaradka oo qodobo dhowr ah laga soo saaray maxay yihiin halkan ayaa idinku faahfaahin doona xildhibaan Yaasin Farey oo sheegay inuusan kaliya xildhibaan noqon doonin isla markaana baaq degdeg u diray beesha uu ka dhashay ee kursiga uu ku matalayo faahfaahin ku saabsan ciidanka dawladda federaalka ee Soomaaliya oo howlgaladii ugu dambeeyay xalay ka fuliyay magaalada Muqdisho kuna soo qabtay doomo u waday maandooriyaal dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ka hortimid go'aan caalami ah oo qaramada midoobe kaga yimid oo ku saabsan Itoobiya wuxuu yahay halkan ayaa idinku soo gudbi doona daawadayaal iyo dawladda Turkiga oo Soomaaliya kala hadashay horumarinta waxbarashada Soomaaliya qodobada iyo qodobo kale ayaanu ku faahfaahineynaa timinteena u diyaar garooba daawadayaal markale isku soo noqod wanaagsan fadlan haday tahay markii kugu horeysay aad soo booqato page-kan followda iyo like saar warkeenana sii share garay waxa aragtidaada ahna qaybta hoose ee comment-ga nagula wadaag mahadsanideen alaaba halkan waxa idinku soo gudbi doonaa wararka ugu dambeeya Soomaaliya caalamka kuwada xulka ah haddii aynu ku bilowna xildhibaan Yaasin Farey ayaa baaq degdeg u diray beeshu ka soo jeediyay isla markaana ugu baaqay inay isku diyaariyaan howlgalo ka dhan ee lagu xoreynayo deegaanada ay degaan oo inta badan shabaab ay ku sugan yihiin taliyaha ku meel gaarka ah ee NISA Yaasin Cabdullaahi Farey ayaa markii ugu horeysay ka hadlay guusha uu ka gaaray kursiga muranka badan hareeyay ee tursigu si yahay Hob 067 waxa uu sheegay in tabashada jirta kursigaasi haatan laga xalin doono gudaha beesha kadib markii uu dhawaan guddiga xalinta khilaafaadka uu xalaaleeyay guusha kursigaasi oo la fahansan yahay sidoo ay fila Soomaaliya ku soo saartay aniga inta badan waxaan ka soo shaqeynaya xil ciidan maanta waxaan u doortay u soo qaatay kursiga ay leeyihiin dadka maanta aan ku matalo beesha aan ka dhashay anaga ayaan iswareysanayna si aynu dhexdooda ah ayaana ku xalin doonaa muranka hoose ee ka jira kursigaas ayuu yiri Yaasin Farey waxaan ballan qaadayaa inaan noqon doonin qof aan dadkiisa ka dhex muuqan bulshada Soomaali weynta kalena aan ka dhex muuqan ciidan kaliya ma noqon doono waxaan noqon doonaa sargaal ka tirsan ciidamada oo ka shaqeeya xoreynta deegaanadeena sidoo kale waxa uu sheegay in muhiim tahay in isku raacaan in deegaanadooda ay xoreystaan isla markaana isku keenaan dadka isaga deegaanada ay isku matalaan si looga xoreeyo al-shabaab oo muddo badan u go'doonsan tahay shabeellada dhexe inay xorowdo ayaa lagu gaari doonaa wada tashi iyo isku duubni maanta in aan ka wada hadalno dan gaar ah iyo deegaan gaar ah waxa igu kalifay waxa iyaga lahaayeen ayaan soo qaatay marka aniga ayaan ku dhawaaqayo oo waan ku qasbanahay inaan xoreysano deegaankeena ugu dambeyntii Yaasin Farey waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay xal u helidda tabashada beesha dhexdeeda ah ee kursiga uu ku guuleystay isagoona xusay inay isugu imaan doonaan kulamo kale oo looga arinsanayo danta deegaanka uu matalo hadalkan ayaa imaanaya kadib markii go'aan ka dhano oo lagu xaglinayay Yaasin Farey guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka uu ka gaaray dacwadii laga soo gudbiyay kursiga oo ku guuleystay Yaasin Farey waxaana si dhow ugu xiran yahay madaxweynaha oo madaxweynaadkiisu haatan dhamaaday Yaasin Farey ayaa ku doodaya in dhammaanba mas'uuliyiintii ka horeysay ee kursigaani ku soo matalaysa beesha uu ka soo jeedo aysan wax muuqdo oo wax qabad la imaan maadaama wali deegaankii dadka uu matalo kursigaasi ay u go'doonsan yihiin al-shabaab taasina ay ka dhigan tahay inaan wax qabad halkaasi laga qaban waa sidoo hadalka u dhigay kulankii ra'iisul wasaaraha iyo madaxda maamul goboleedyada iyo midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa laga soo saaray qodobo dhowr ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa xalay shir gudoomiye kulan fawaan arag ah oo yeesheen golaha wada tashiga qaranka kaas oo diiradda lagu saaray arrimaha doorashooyinka dalka iyo sidoo kale midowga musharaxiinta sida lagu shaaciyay qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha wajiga koobaad ee waxa warbixin looga dhageystay shirka gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal Maxamed Xasan Ciro gudoomiye Ciro ayaa dhinacyada faahfaahin ka siiyay dib u dhacyada ku yimid jadwalka doorashooyinka hufnaan la'aanta laga tirsanayo doorashada iyo wada shaqeynta ay uga baahan yihiin madaxda dawlad goboleedyada sidoo kale xubno matalaya midowga musharaxiinta ayaa ka qayb gala kulankaas kuwaas oo ay ka mid ahaayeen madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame musharaxiinta ayaa madaxda golaha wada tashiga qaranka ka dalbaday in la saxo qalalaadka ka jira habraacyada doorashooyinka iyo sida ay lagama maarmaan u tahay in la dhowro hufnaanta doorashada oo doorasho xor iyo xalaal dalka ay ka dhacdo maadaama faa'iido ugu jirin in haatan la boobo
shirkan oo ku qabsoomay aalada Fawaan Aragga Zoom-ka ayaa waxaa lagu cilaamiyay shir ka dhici doona Muqdisho oo isugu imaanayaan madaxda golaha wadatashiga qaranka si looga arinsado dhamaystirka doorashooyinka haatan socdo. Wadahadal iyo falaqayn dheer kadib xubnaha golaha wadatashiga qaranka waxay isku raaceen in si kama dambays ah loo dardargeliyo qabashada doorashooyinka kuraasta dhamaan iyo golaha wadatashiga qaranka waxay isugu imaanayaan kulan dhawaan looga arinsanayo dhamaystirka doorashooyinka ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare Roble. Golaha midowga musharaxiinta ayaa hore u soo saaray qoraal ay ku cadeynayaan qalaadka ka jira doorashada waxayna dalbadeen in la hakiyo doorashada socota balse ma jirto cid dhag jalaq u siisay dalabkaas taas oo keentay inay si toos ah mowqifkooda ugu gudbiyaan Roble iyo madaxda dowlad goboleedyada. Ra'iisul wasaare Roble ayaana hore u ballan qaaday in cabashooyinka ka yimid doorashada uu wax ka qabanayo balse ilaa hadda ma jirto tallaabo uu qaaday si wax looga bedelo hanaanka kalsoonida musharaxiinta lumiye ee doorashada ku bilaabatay. Dhinacyada kulanka dhexmaray ayaa isla xusay in dhamaanba saamilayda siyaasadeed doorasho ay ku qanacsan yihiin xilligan inay Soomaaliya ka dhacdo ay dalka dhan ugu jirto. Beesha caalamka ayaa madaxda maamul goboleedyada iyo sidoo kale ra'iisul wasaare Roble culaysyo badan ku saartay in doorashada muranka hareeya haatan wax laga qabto cabashadeeda isla markaana si gaar ah midowga musharaxiinta oo qayladhaantooda soo kortay. Dowladda Soomaaliya ayaa ka hortimi go'aan caalami ah oo ka dhan ah Itoobiya kadib qaramada midoobay u soo gudbisay. Golaha xuquuqul aadanaha ee qaramada midoobay ayaa cod u qaaday ansixinta abuuritaanka guddi khubaro ah oo caalami ah oo baaritaan ku sameynaya tacadiyada xuquuqul aadanaha ee dalka Itoobiya ka socdo. Codeyntan ayaa dhacday kadib shir shalay looga hadlayay xaaladaha xuquuqul aadanaha ee Itoobiya taa oo saraakiisha qaramada midoobay ay ka digeen in dagaalka Itoobiya uu noqon karo mid baaha oo saameeya gobolka oo dhan. Codeynta shalay laga qaaday 21 wadan oo kamid ah wadamada ku jira golaha xuquuqul aadanaha ee qaramada midoobay waxay ku codeeyeen inay ansixiyaan in qaraarkaasi waxaana ka soo horjeestay 15 wadan halka 11 kalena ay aamuseen. Wadamada ansixiyay waxaa kamid ah kuwa Yurub ay ku jiraan Britain, Jarmalka halka kuwa kalena ay ka soo horjeesteen ay ku jiraan Soomaaliya iyo Eritrea. Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Eritrea Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Yaasiin Afwerki ayaana saaxiibo la ah ra'iisul wasaare Abiy Ahmed. Farmaajo wuxuu hore u taageeray dagaalka Abiy Ahmed uu ku qaaday Tigreega halka Afwerkina ciidamo u soo diray gobolkaasi si loo soo afjaro Tigreey. In dowladda federaalka ee Soomaaliya ay diiday in la baaro tacadiyada bini'aadanimo waa ceeb kale u soo hoyatay Soomaaliya. Ka sokow Soomaaliya iyo Eritrea dhamaanba wadamada Afrika ku jira golahan ayaa isku jiray kuwa diiday iyo kuwa ka aamusay. Wadamada ka aamusay waxaa ku jira Senegal, Liibiya, Malawi iyo Suudaan. Guddigan ayaana ka koobnaan doona 3 qof waxayna la socdaan xaaladaha xuquuqul aadanaha ee dalka Itoobiya oo muddo hal sano dagaal ka holcayaan. Dowladda Itoobiya ayaa ka soo horjeestay shirka shalay iyo dhismaha guddigaasi waxayna sheegeen shirkaasi afduubeen dhinacyo leh dana siyaasadeed sida ay hadalka u dhigeen. Itoobiya waxaa muddo ka socda dagaalo xooggan taas oo la sheegay in arrimo bini'aadanimo xooggan ay ka dhasheen si gaar ah gobolka Tigreega oo muddoba u dagaalka ka holcayay. Ugu dambeyntiina ciidamada booliska Soomaaliya ayaa xalay gacanta ku dhigay doomo sida waxyaabaha maanka dooriyada oo lagu soo bandhigay xeebta Liido ee magaalada Muqdisho. Doontan ayaa la sheegay in ay ka soo sharaacatay magaalada Hobyo ee gobolka Mudug waxaana la sheegay in ay baxsadeen rag waday doontaasi. Fayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Cabdifitaax Aadan Xasan oo warbaahinta kula hadlay xeebta Liido oo lagu soo bandhigay doontan waxa ay sheegeen howlgal culus oo ka dhan ah maandooriyaha ay bilaabeen ciidanka booliska Soomaaliyeed kadib amniga Muqdisho uu qalqal galiyay. Doontan waxay sida waxyaabaha maanka dooriyo oo isku dhex jira sidaan ayaana uga hortagaynaa meel kasta oo isku dayaan inay dalka ka soo galiyaan muqaadaraad ayuu yiri afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed. Waxa uu intaas ku daray waxaan ugu baaqayaa dadka doomaha leh in ay ka waantoobaan waxyaabaha ay ku qaadayaan haddii kale booliska waxay la tiigsan doonaan sharciga nagamana baxsan doonaan. Ciidanka ammaanka dowladda Soomaaliya waxay maalmihii la soo dhaafay si xiriir ah ugu guuleysteen howlgalo ka dhan ah waxyaabaha maanka dooriyo oo howlgaladaas oo ka dhacay magaalada Muqdisho. Waxayna gacanta lagu soo dhigay warshado lagu sameyn jiray maandooriyaal sidoo kalena waxay hay'adaha ammaanka gubeen noocyada kala duwan ee maandooriyaasha iyadoona gacanta lagu dhigay dadka ka ganacsan jiray. Horey ay booliska iyo maamulka gobolka Banaadir iyo wasaaradda amniga dowladda Soomaaliya ugu baaqday in wax un laga bedelo xaaladda amniga magaalada Muqdisho oo maandooriyaha saameyn xooggan ku yeeshay si gaar ah degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir oo kooxo maandooriyaha duleeyay ay dadka dil iyo dhac ugu geystaan.
howlgaladii maalmihii dambe ka dhacay Muqdisho ayaana u muuqda kuwa ay booliska Soomaaliya ku guuleysteen isla markaana tillaabooyin xoog leh ay qaadeen isagoona taliyaha booliska gobolka Banaadir Farxaan Qaroole ku amray ciidamada in sida waafaqsan sharciga ay u gutaan howlgalkooda isla markaana wax ka soo lid ku ah amniga Muqdisho tillaabo ka qaadaan inta ayaana saaxiibayaal ku soo afmeerayna tabinteennii maalinimaad kala socoteen channelka wararka ee Somali News intaan warkan war la mid ah ku kulmi doono waxaan kaga tagaynaa nabadgelyo fadlan markii kugu horeysa soo boqoto channelkan haday tahay ku soo beer oo channelkeena YouTube subscribe ka soo saar ee Somali News sidoo kalena boggeena Facebook like iyo follow saar muuqaalkeena share garay oo saaxiibada kala sii gaarsii mahadsanideen tan iyo warka mid la mid inta kulmi doono nabadgelyo